Dad badan waxay u malaynayaan in mustaqbalku uu ku xidhan yahay nasiibka. Laakiin runta dhabta ahi waxay tahay mustaqbalkaaga waxa si weyn u saameeya waa fikirkaaga maanta. Si aad u fikirto, si aad naftaada u aragto, iyo waxa aad maskaxdaada ku celceliso maalin kasta, waxay dhisayaan nolosha aad berri ku noolaan doonto. Qofka had iyo jeer dhaha ma awoodi karo, inta badan wuxuu istaagaa ka hor inta uusan isku dayin. Qofka maskaxdiisu ka buuxdo cabsi iyo quusna wuxuu lumiyaa fursado badan oo nolosha hortiisa keenaya. Laakiin qofka aaminsan inuu wax qaban karo, xitaa haddii uu dhib ku jiro, wuxuu helaa awood uu ku sii socdo. Maskaxdu waa meel aad u xoog badan. Wax kasta oo aad si joogto ah ugu shubto waxay noqdaan qayb ka mid ah noloshaada. Haddii aad maalin kasta ku noolaato fikir taban, naftaada hoos u dhigto, oo aad aaminto inaad guuldarraysan doonto, ugu dambayn fikirkaas ayaa dhab isku beddeli kara. Laakiin haddii aad naftaada dhiirigeliso oo aad barato inaad rajayso wanaag, oo aad aaminto in maalmo wanaagsan imaanayaan, waxaad bilaabaysaa inaad si ka duwan u noolaato una kobocdo. Fikirka wanaagsan macnaheedu maaha inaad iska indhatirto dhibaatadaada. Macnaheedu waa inaad aaminto in dhib kasta xal leeyahay. Dad badan oo maanta guulaystay, maalin ayay cidlo ahaayeen, maalin ayay niyad jabsanaayeen, maalin ayaa lagu yiri waxba ma noqon kartaan. Laakiin hal shay ayay sameeyeen: ma aysan u ogolaan fikirka dadka kale inuu dilo riyadooda. Waxay doorteen inay naftooda rumaystaan. Waxay doorteen inay isku dayaan mar kale xitaa markii ay dhacayeen. Mararka qaar cadowga ugu weyn ma aha dadka kale, ee waa naftaada. Ka fikir waa fikir xun oo gudaha maskaxdiisa ku jira. Fikirka aan kuu sheegayo waa daahday, adiga laguma guulaysan karo, qof kaa fiican ayaa jira. Waxyaalahaas oo dhan waa inaad remove garaysaa ama aad ignore garaysaa. Haddii aad codadkaas dhegaysato, waxaad bilaabaysaa inaad ka baqdo tallaabo kasta oo cusub. Laakiin haddii aad barato inaad maskaxdaada xakamayso oo aad naftaada ku tiraahdo waad awooddaa, waxaan leeyahay mustaqbal wanaagsan, dhibkan waan ka gudbi doonaa, waxaad dareemaysaa isbeddel degdeg ah. Midna xasuusnow, geed kasta wuxuu ka bilowmaa iniin yar. Sidoo kale guushu waxay ka bilaamataa hal iftiin ama hal fikir oo aad go'aankeeda si sax ah u gaadhay, lana timid dadaalkeeda joogtada ah. Fikirkaaga maanta wuxuu noqon karaa noloshaada berrito. Haddii aad rabto mustaqbal wanaagsan, baro inaad si wanaagsan u fikirto. Ka fogow dadka mararka qaar quusta wada. Dhegayso wax ku dhiirigelinaya. Naftaadana u sheeg erayo wanaagsan. Sababtoo ah qofka maskaxdiisa dhisa, ugu dambayn noloshiisa ayuu dhistaa. Haddii maanta aad ku jirto wakhti adag, ha u malayn in noloshu halkaas ku dhammaatay. Waxaa laga yaabaa in dhibaatada aad maanta la tacaalayso ay kuu diyaarinayso meel aad berri gaari doonto. Wax walba waxay ku bilowmaan fikir. Fikirka ayaana noqda ficil. Ficilka ayaana noqda caado. Caadaduna ugu dambayn waxay noqotaa noloshaada. Sidaas darteed, ilaali fikirkaaga, ilaali maskaxdaada, ilaali rajadaada, ilaali dadaalkaaga. Mar kastana ahaw ruux garanaya